madax dhaqameed guurti aqoon-yahano iyo waxgaradka beeraha Sanaag qaarkood ayaa shir saxaafadada ay maanta ku qabteen hotel Sanaag ee magaalada Ceelgaabo waxay halkaasi ka sheegeen in aanay suurtagal ahayn xilligan go'aanka xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay adeegyada saad iyo iidahab ee inaan lagu shuban karin la isuguna diri karin wax ka yar $100 waxayna madaxweyne Silaanya iyo xukuumaddiisa sare ka codsadeen in xukuumaddu ka noqoto go'aankaas waxaana madax dhaqameedkan iyo guurtidan beeraha Sanaag iyo arrimahaasi ka hadlayeen hadaladoodii kamid ahaa sidan arrintaasi ayay saadka lagaga hadlay ama lagaga hadlay aad baa looga dhiilaabay waxa looga dhiilaabay waxa basuuragal ahayn maantana waa dhawaaqnay berrina waa lagu dhaqmayaa suuragal waa nala noqon weyday saadku ma keenin sixir bararka meeshii sixir bararka ay ka yimaadeen dadku waa garanayaan dawladdu way garanaysaa saadkan dadku u fududeeya dadka u qaxay booyada geeyay bariga hadda boosta dadka tagay halkaas oo looga diraya oo $50 soo dir booyadii waxay taagantahay halka waa hawl fududeyn waxaan leenahay dawladdu halka kuma jirto sixir bararka saadku dadku u fududeeyaa arrintan waxaan leenahay 4 saacadood kuma koobmi kartee sida hore loo sheegay chance badan la bixinta abaaru ay ka baxayaan aniga waxaan leenahay saadka hala daayo sixir bararku halka ma aha meeshu yahay laga doono maanta maalinka ooyayo lagu soo joogsado maaha muddadu munaasib maaha anagu wax kale ka hadli mayno xukuumadda iyo wasiiradooda iyo xusbiyada intaba waanu taageersanahay laakiin waxaan leenahay war muddadu kuma fila dadka dib ha loogu noqdo dadka bari u guuray meesha la yiraahdo Bandarbayla iyo isku shuban 400 kilomitir bay u jirtaa hal meel oo bartamo ah baa dadku ka cabaa oo biyaha laga dhaaminayay dadkii ka guuray ilaa gobol Sanaag ilaa Buuhoodle saadka waxa looga dirayay taajida ay ka tageen baa looga dirayay haddii marka saadka la joojiyo booyadaha Hargeysa ka soo qaada dadka biyaha u guuraya qodob kala jira waxa la sheegay $900 inuu ka gaaray wiigii soo socday $100 kiishkii sonkorta ahaa oo ahaa $30 $50 buu tagay isaga waxba laga ma sheegin isagu bal intiisaas u ahaanaya sixir bararkuna waa kaas koobkii maqaayada inuu isugu nimi dusha sixirka wixii sixirka adag ee dusha adag waxa laga qabto laakiin koobka shaaha iyo biyaha aanu shubanayno iyo inta yaryar aanu ku shaqaysanayno iyo inaan maanta isugu iman abaarta waa abaar labaade $100 wixii ka hooseeya waa adeeg weeyaan adeegno sixir barar ma aha hawl fududeyn weeyaan sidaanu anagu u naqaano ka Bandarbayla iyo isku shuban iyo qandala iyo calowla jooga waxaanu u dirnaa 20ka 30ka 10ka 5ta taasoo wax ku qabsada wariyaareen bal idinku hadda arrinta hadda dib ugu noqda malaha lagama fiirsane arrinka kani xoogaa fajicisuu keenay waayo abaarihi iyo dhibaatadii annaga dadka waxay u muuqatay in ay arrintaasi aanay waqtigan munaasib ahayn waxaanu leenahay madaxweynaha iyo wasiirada golayaasha waxaan ka codsanaynaa arrinta in dib loogu noqdo lagama hadlin saad iyo iidahabtoona waxa laga cawday waxa weeye sixir bararkan aafeeyay dalka waxaana ka koow ah haddaynu xaqiiqada isla rabno ganacsatadan waaweyn maanta kiishka wuxuu ka joogaa sokori halka $50 waxa dhigmiirata ganacsatada aan cidna u naxayn dawladuna ka warwareegayso ma garanayno sabab looga warwareegayo anigu kulay direermigana kamid baan baahayo dadka guuray ee tagay maxay ahayd Puntland iyo Bergal ee doonayay booyadii aan $50 ugu diraynay waa la jooji oo arinta la diri maayo dee waa la xajalo ma hataasi ninka ilaa boosaas socday Soomaaliland ba halkan taalo lagu qaaday Soomaaliland ta isaga yaqaan halku marayba lagu ma yaqaan adeer warqada yar $1 iyo email dahabka la isu dirayay ayay dantooda ku jirtay waxaan leenahay dadka arrinta waa laga soo horjeedaa si cad baa looga soo horjeedaa anagoo ka tarjumayna ra'yiga dadka waxaan leenahay arrinta laga bedelo ha laga noqdo siyaasadana kuma jirto in qofka nolosha loogu yimaado ninkii $10 shahaadi lahaa haddii la yiri lagu siin maayo maxaa laga doonayaa markaa inuu sameeyo waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish waa Bari TV Ceelgaabo